markii xagga jaceylka la fiiriyo farxiyo iyo isleeda horta rag iyo dumar jaceylka caqabad uu ka haysta wala horta jaceylka caqabadaba qof jacayl ku dhacay oo bala caqabad ah nolosha dhan baa horta caqabada yani sunadeeda ay tahay ay ka buuxda jaceylkan waxay moodaa si gaar ah inuu caqabadiisa u sii wato markaad qofkii aad rabtay runtii aad daneynaysay noloshaada aad la jecleed aad taleefankiisa weyso ama fariintiisa aad weyso walwal badana yani halkaas kaaga dhalana heer dee mararka qaar stress uu kugu dhaco xaalad yani qolyaha caafimaadka waxay sheegaan ma ogtahay waxaa la yidhahdaa caafimaadku ma yani cudurku ma inuu maaragta caafimaadku ma inuu cudur jirkaaga ka maqan yahay kaliya ma yani mararka qaar waxaa jira qofka asagoon dhaawacayn ama dhibaato kale hayn xaalado nafsiga gudaha inuu dareemo oo isla hadlaysaa waxaa laga yaabaa qofkaaga intuu sawir soo dhigo gabdho badan oo maaragtay aad loo saarsaarayo ama ereyo romantiga dhahay in aragto dhiigga kugu karo marka horta jacaylka caqabadihiisa wata ama xanuunadiisa ama maseerkiisa saameyntiisa kama sheekeyn karo waa xaalad runtii cidda ku dhex jirta unbaa waxaa ii sawiran marka inaad tahay qof jaceylka kusoo dhex gubtay nolosha wax badan ee kasoo arkay dhowr qisooyin jaceylna ay soo mareen farxi soo maaha qisooyin badan ima soo marin laakiin qisada ay soo martay baa waxaan isleeyahay boqolaal qiso oo dhiganto tusaale yar muddo 4 sano ah baa waxaa dhacday inaan jacayl aamusnaa oo aan qarsanayo oo heer dee qofka kale moogtahay waxaa jirto yani mararka qaar wiilkay gabadha way saaxiibaan ama way walaaloobaan waa la isfahmaa isku deegaan aan leeyahay ama isku waxbarasho meel un baa lagu kulmaa xaaladda noocaasa waxaa laga yaabaa adiga inaad ku dareen qaadato qofkan sheekadiisa habuuqaalkiisa siduu kuula falgalaayo naxariista uu kuu sameynayo wanaageeda aa kala kulmayso adiga jacayl inaa ka qaata laga yaaba isagana walaalnimo ama saaxiibnimo uu wax u sameynayo waa xaaladaada maamuli karin oo gacantaada marka halkaa marka gacantaada ka baxday talafare kuma jirto xaaladda noocaasa runtii waxay ahayd mid kamid a xaaladii aan aniga lama filaan ahaan nadars qofaan yani isagana i walaashanaya ama saaxiib iga dhiganaya anigana aan dareenkaa u qaaday waxaa dhici jirta marka mararka qaar maadaama uu u arkaynin inaan jeclahay inuu intay i imaado idho tusaale adoo Faaduma isoo booqanayo asxaaba la moogta inuu dho Faaduma ka helay lambarkeeda iyo kan oo adigana aad jeceshahay anigana aan jeclahay oodan u sheegay waxaan ku qasbanaa inaan lambarka geeyo lambarkaas inaan qoro ama ismadadaaliyo oon iraado lambarka ma hayo meelo kale aan soo marmaro iska suuragal waxaa dhici jirta mararka qaar inay dhihi jiray tusaale ani gurigayga inta badan goob waxay dhalinyarada ay ku kulmaan oo dukaan yar xaafadda iga furnaa geed yar oo geedka jaceylka oo dhahay fursad yar waxaan lahaa intaan ubaxyo iyo wax ku soo sameeyo mararka qaar dadka raba inay kulmaan aan yani u diyaariyo marka mararka qaar waxaa dhici jirta xataa in la dhaho kulanka gurigaaga ka dhacay diyaari marka runtii waxay iska ahayd xaalad runtii marka ka shaqada marka waxa soo qorayso xaqa u leedahay hada xanuunka arka dulqaadkeeda aa sameysay jaceylkaas 4 sano aa qarsanaysa farxi halkuu ku dambeeyay ma sheegatay markii dambe sidaas ugu sameeyay wallahi mar xeeri fandhaal kala dhaceen oo adduunka isbedelay oo waaye badan aan soo maray oo xaalada kala galay kadib adigana quusato wixii kugu jawaabay dhinac u nacday qofkiina uu iska baxayo magaaladii ka tagay oo waadanba markay ka soo wareegato muddo waxaan u maleynayaa waxaan ismoogeen qiyaastii 3 sano oo kale yaan ismoogeen dib aan isku aragnay dib kulankaas dambe aan ku dhiiraday anoo xoogaa yara ilbax noqday oo awood yeeshay oo aad wax u akhriyay oo dad badan la tashtay baan dhiiraday ugu dambeyn waa la aqbalay laakiin aqbalka la aqbalay laftirkeeda ma ahayn mid gudaha jirta ma ahayn oo mararka qaar waxaan hadda inta badan u dagaalamaa waxa waaye on yani dhiirigelinta waxa keenta wax badan oo la soo gubtay xaalado badan oo runtii aan soo galay marka qofka si saaxiibtinimo leh ama si walaalnimo ah uu ku qaabilo laakiin dareen xaqiisa uu ku jiro ama yani uusan hami uusan ka lahayn way dhib badan tahay adigu ma ogtahay waxa la yiraahdaa yani qofka wax jecel isaga dhibana si dhib ma haytiri fanaanadi yani adiga dhibka ku haysto qofkan ma dareemayo sababtoo ah qofka horta sideedaba waxa la calool baahan calool kala dareento moogta qof dharagsan qof baahan ma dareemayo qofka marka maadaama uu marxalad ku jirin ma ku oga xaaladaada waxa waaye taleefanka la isaga ka dhigaysanaya fariimaha laga jawaab waxyaabaha runtii la yaab ka ahayd oo qisada aan ku xasuusta qayb ka ahayd in hal fadhi aan mararka qaar ka diri jiray wax ku dhow content message oo wax bilaa jawaab ah wax dareena yani wax walwala oo dagaal soo fariin ka bixi jireen ma dagaalamaysid moogta waxa isleedahay fariin qaldan haday ka baxdo adaaba moogta yani isku laabana waxa leedahay
ama hadda naxariis deerta haysta ama weyda qaldaman alle wax badan wax ka dulqaad badan ma laha wax kasta xeer ilaha waxaad rabtaa maqan wali u jeedo in lagu dameeyo waxa la gacanta uga dhacday macnaha هذا اسكو سمرسينا oo lagu mashquulinayo ba waxa laga telefoonka dansa waxa laga yaabaa inay istiraaxatan waxa laga yaabaa inta soo socdo in wadada loo galo tuu ka qaatay boqolaal marmarsiyood oo runtii badaas ah ayaa u sameynaysa marka qaar waxa dhaca jirtay inta meel lagu balamiyo sida u sugaysa gobolka kugu dhaco helwis marka saameyn badan baa leedahay aad uga sii sheekeyn karo ilaa shooyada jaceelka lagu madhin bal qisadaas marka laga soo gudbo jaceelkaaga runtii aad u maasan yahay waxa waaye waa nolosheeda wax badan ka bedelay macallin sax uu ku noqdo Soomaa oo aad khibrad ku sii qaadatay isla yalla filanka maanta aad tahay qayb ku ah marka abaal baa uga haya haween xanuujiye aad yaa si kasta waa in la isku mahad celiyaa marka jaceelkii xigay iyo noloshii ku soo martay ma sidaanay ka fududeed haddana mise way ka adkeed والله horta wixii horta xiliga ka dambeeyay hasaawadaga iska aha mararka qaar marka inta wax jeclaato oo jacaylkaas ku hungoodo ama dhaawac runtii wax badan ku dhawaad muddo 8 bilood ka bashan ku jiray yani waxaan rabay inaan soo helo si guud aniga waxaan dadka dhanka kale adag inaan ku jiro oo yani duruufaha ay isla degin inaan ku jiro aaminsanahay oo runtii xaalado badan oo waxa jiray ama dareenkaas ahaado ama yani xaaladaha nololeed ee gaarka ah noqdaan يعني قف أدق أسكو لكن سكة صو أدق تجعلك كأدق تاسف مالها معناه نوح هدي لفاه دوغلا أو دمات يعني وحنا دفيري كريم هاي قف كستو قبوين جعلك كسي قبوين فكرت هاي رنتي حالة هيد لكن أضو الحمد لله ودمبين والصاحة لي قبل عادي قاعد ونرشد عادي والله يقانا صو نقطة حبرشدي يوم ماركتي هنكي يو رنتي مالمي قروح بدنا ودبي يقول صلاتي وايد دم مركا halkaas horta waxa iiga dhashay inaan qareen noqdo yani aan qof ka soo la dulminayo markaa waxaan anaa soo arkay laga dahay wallahi xataa waxa dhibi jirtay Faadimo qof ay ag fadhiyo inuu qof telefoon ku dhageysto yani way aad ii gubi jirtay sababtoo waxaan xaalad aan dareemay oo runtii aad wixii ku soo sawir maayda nolosha waxa soo martay ku soo sawir maay wiji kala ku baxay marka wixii ka dambeeyay horta qareen aan noqday oo waxaan aadiyaad waxaati laga wadiyaa waxaan ku soo baqal waxaan ku taamayaa inaan xarumo u furo maxaa dadka xarumaha jaceelka kala dhaxdhaxaad dadka lagu dabiibo wax badan dadka loogu sheego waana isla runtii fariimahayga inay dad badan wacyigelin u noqonaan sideedana qisada moogtaa ta adiga kugu dhacday iyo midda hareeraha ka dhacda ta adiga kugu dhacda ku saameyn badan sababtoo ah adaa xog ogaal ah adaa waayo arag ah adaa nolosha wax badan yani uga baranayo marka runtii waayaheeda iyo waqtigeeda lahayd su'aal baa i weydiisay hadda runtii hadda waxaan isleeyahay xilligaaga ugu fiicnayd waa ku jirtaa saan baa waxa laga yahay haddaan ilaahay beenin anna baajib maayo tiri muxuu ahaa ilaahay ha u naxariistee muxuu ahaa waxaan u malaynayaa waxaa ku luuqaysay xalimo khaliif magol ilaahay naxariis janno iyada iyo maaragtay kuwii ka dambeeyay oo dhanba ha naxariis marka haddaan ilaahay beenin anna baajin maayo iga maraysaayo meel fiican oo runtii qurux badan oo hadda aan boogadhayo u bixiyey oo aan rajeynayo waxyaabihii aan soo maro dhanba inaan uga bogsado ayaan ku dhex jiray hadda gacanta haysataa allah ku barakeeyo hadda waxa su'aasha la isweydiinaya waxay tahay horta farxiyo reer ma soo maro qoys ma soo yeelatay oo su'aal aad u muhiim ah sina adag dhab ahaan horta hadda waxaan u malaynayaa 2022 baa lagu jiraa muddo qiyaastii 12 sano ka hor 2009 baa marwa ahaa marka nolol yar waxay ahayd runtii saameynteeda wanaageeda waxtarkeeda caqabadeeda iyo culeysyadeeda leh mid kamid ah waayo aragnimada maanta aan haystana aan isleeyahay waa u shinsanaysaa marka marwo horeysa hadda madax banaan waa tahay rajeynaysa haddana dib mar kale inay marwo noqoto u taagan hadda hooyada jaceelka waaye laga faa'iideystaan leeyahay intira la sugayo waa tahay imaan doona kulay wili booskaaga yaa banaan mar buu soo buuxin doonaa halka dhigeedeeda kamid inta badan baraheeda bulshada isticmaasho ku daawacdo bal ka waran qof adigu aad jeceshahay farxiyaay oo aad u dhimanaysid oo aad daryeelaysid oo dhib dhaawac aad ka ilaalinaysid ku fahmi waayo marad adiga niyad jabtood wixii si ay kuula hadana noqdaan oo allergy iyo tabartii aad marka hore u haysay si laciifaa balse asiga dib ka soo laba gocleeyo macnaheedu qofkaas la siin karaa mudnaanto leeyahay ma meeshii mise meel ka duwan wallahi horta gadgadoonka waayaha waaye oo way dhacdaa inta badan ba waxaan aaminsanahay anigu dareenka sidiisa ma qasaaro yani marka xaaladda markaas ay ku dhex jirto xanuuno badan oo u mareysaa laakiin waxaa dhab ah
qofka aa waxaasoo dhan ku bixinaysay maalin uu dareemaya ama uu isdareensiinaya runta saameynay leedahay in yani maalgelintii faraha badneed ee kaa bixaysay xilliga aad mudnayd natiijadeeda inaad heli weyso saameynteeda leedahay waana wax inta badan runtii aad moodaba xiriiradan inay u badan yihiin qofaa 100% maraayo ka kala 30 iyo 40 iyo 20 iska cagacageynaya qofkii 100 maraayo markuu soo dega kii kala korca waa يعني حالتي فورك اسك عمل مرة باش كور أد مرة ماركتي maxaas leedahay marka mudnaantaas waa la siin karaa qofkaas ma booskiya loo soo celiyaa mise sidii wixii u ahaadaan oo waa niga jawaab la taagnaana horta aniga sheekada arsiga loo ma taageersani qofku haduuba horta mid aad jirto yani waxa laga yaabaa adiga dareenkaagu isbedelaya waxa laga yaabaa qofka inuu qalbigaaga ka baxaba waxa laga yaabaa inaad nolol kala sameysato adduunyo kale aad ku biirto waxyaabo badan markay halka marayso hadii fursad banaan ay jirto qofkan macna qofka yani waxa ilaahay maadiisa qofka inuu ta garawsaday dareenki maanta marxaladii adiga shalay aamreys uu maraayo laftirkaaga inay ku dareen galiso way moogtaa oo qofka aad jeclayd shalay oo wax badan aa heysay hadii wax shalay aamreysay uu maanta maraayo inaad ku daysan horta way fiican tahay taasana gobonimada ku jirta macnaha oo يعني هذا يعني قف شال سوق رقم هذا رقم وهدا أودي كرتو صوبته هذا كرتو إن حالة كلا كجرتو لكن هذا دولي سيدي وما ضح بنانته حكي عن قف غير فرصة ترى دقني موقع موقع أسرع مركا كعشر بدن هو أذكر إلى عشان هاي مركا على سودو مساكين تضمن إيش هرنا حد اللي معنا هاي